بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan sii wadi doonaa exercisekeena haddii la idmo maanta waxaan maraynaa exercise 4 haddii la idmo su-aashana la weydiiyo waxay tahay weli waxaan ku jirnaa classifying real numbers su-aashana la weydiiyo waxay tahay classify each as either positive or negative and as either rational or irrational numbers marka does the number lies left or right side of the zero on the line number macnaha line number waxaa laga wadaa haddaan soo qaadana line dheer line haddaan dhana intaan dhana zero waxa waaye baalka lagu cabiro temperature-ka macnaha camal 2 3 4 5 intan waxa waaye -1 -2 -3 saas socona macnaha kan inta u socona macnaha line number kan waa marka macnaha waxaa laga wadaa su-aasha markaa ka jawaabtid ma right side-ka positive miya amba left side-ka macnaha negative-ka marka insha allah waxa waaye waa fiirinayna haddii aan a ka bilaawno a waxa waa negative waaye negative-kan macnaha almost waa left side of the waaye macnaha wuxuu noqon doonaa laakiin magaca numberka nooca uu noqon doonaa waxaa leenahay -10 loo qaybiyey 3 waxay la mid tahay 3 point sorry غلطان صح ومعناها 3.333 واي وصعنيسا marka waxa leenahay 3 ayaa marka soo noqonaysa macnaha marka jawaabta waxa leenahay waa horta ko rational number waa maadaama jajab tahay haddana macnaha waxa waa repeating ko waxa waa rational number jawaabta kooda waaye jawaabta waxa waaye macnaha waa repeating decimal saddexaadna macnaha waxa waaye maadaama minus tahay sorry -3.333 waaye maadaama ay minus tahay waxa waa intay left side ka macnaha left side macnaha waa left side of the zero macnaha left side of zero marka jawaabta saas macnaha ko waxa waa real rational number waaye laba macnaha waxa waa repeating decimal waaye saddexaad macnaha waxay joogtaa macnaha left side jirtaa macnaha maadaama minus tahay insha allah b haddaan soo qaadano b waxa waaye square root of 5 macnaha waa 5 xiid ku jirto 5 xiidka macnaha waa ka baxay laakiin waa tiro oo macnaha oo irrational number waaye macnaha jawaabtan ay noqonaysaa 2.23 6 sa ognahay kan waxa waaye jawaabta waxa waa rational number no irrational number sorry irrational number maadaama macnaha uusan repeating ahayn terminating oo waa irrational number waa probio maadaama uu positive yahay macnaha waxa right side waa macnaha waa right side of zero macnaha wuxuu jiraa macnaha dhankan oo macnaha eber wax inta ka jiro jiraa macnaha right side of the macnaha waa numbers macnaha wixii zero inta ka xigo wixii meeshan inta jiraa macnaha left side marka right side waa macnaha jawaabtan b waa irrational number waana right side ka macnaha haddii aan soo qaadano c da c waxa waaye waa minus square root of 289 markaan calculator qaadano waxaan ogaanay inay 17 tahay root-ka 17 ugu baxdaa waxaan leenahay waa minus square root 17 oo ku jibaaran 17 power 2 macnaha sidaba macnaha xididku waxa waaye half jibaaran waaye saa ognahay xisaabta tirada xididka ah macnaha half jibaaran waaye halahan waxay la sii mid tahay 17 laba jibaaran oo sii jibaaran half xid haddii maqasho waxa waaye waa laba jibaaran marka waxa isku dhacay half iyo laba isku dhacay hal ay noqonayaan 17 nadiif ah noo soo baxay oo minuskeeda sorry macnaha minusku dadku waxay isku qaldayaan macnaha minuskan gudaha doo ku jir lahay macnaha waa adkaaleed laakiin hadda minuska banaanka u yaala macnaha markasto marka xid ka bixino 17 waaye laakiin minus waa qaadanaysaa macnaha marka waxaan leenahay waa
rational number inay taan jecelahaa like waa negative jawaabta waxa waaye waa rational number haddana maadaama ay minus wadato macnaha waxaan leenahay waa left side waa left side of 0 minus 17 wuxuu jiraa intuu sii jiraa macnaha dhankaan u jiraa problem d aan soo qaadano d waxa waaye waa 6 by waaye minus 6 by sorry minus 6 by waxay la mid tahay minus 6 oo lagu dhufto by waxa waaye waa 3.14 haddii aan xasuusto 15 waxay la mid tahay minus 18 hakad 84 955 okay number 1 macnaha waxa waaye repeatedna ma aha terminatedna ma aha marka waxa waaye waa irrational number waa irrational number jawaabtkooda mugta jawaabta labaad waxa waaye waa left side maadaama ay minus wadato minus wuxuu jiraa wixii eberka inta ka xigo wixii eberka inta ka xigo jirtaa macnaha maadaama ay minus tahay marka waxaa leenahay waxa waaye waa left side of 0 d haddaan soo jeesano d waxa waaye saan u jeedna waxa waaye 0.6153 84 61 معناها اوكي اوكي 61584 اوكي هذا في ريسيت اوكي شنطة نمبر 615384 61584 marka waxa waa repeating waaye macnaha marka waxa leenahay kan waa numberka waxa waaye waa rational number maadaama uu repeating yahay waa rational number hadduu uu repeating ahaa lahayn wuxuu noqonayaa irrational number hadda waa rational number waa okay rational number haddana macnaha waa positive rational number waaye haddana waxa waaye repeating waaye repeating decimal waa repeating decimal jawaabta labaad waaye jawaabta saddexaadna waxa waaye waa maadaama positive yahay waa left macnaha waa right side of 0 waa right side maxaa laga wadaa macnaha inta ku bilaabo wixii inta u socdo dhan waxa waa right side macnaha right side macnaha san waa maadaama eber 0.6 meelaha camal ku soo aaday 0.6.5 meelaha camal ku aaday marka wixii eberka inta ka xigo dhan waxa waa right side waxa inta ka xigana waa left side macnaha marka cabirkan macnaha line kan waxaan baran doonaa dib leeyahay oo si baran doonaa laakiin hadda waa introduction ay noo tahay insha Allah waxaan meeshan ku soo kaba gabeynaa maasintii